ووفدي وزيرة حكومة رئيس الوزراء حمزة عبد بري وقولوا كدغ garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaas oo si balaaran loogu soo dhaweynayo diyaaradda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo la sugayo iyo xaaladda magaalada Laascaanood oo maanta jawi kala ah Laascaanood oo maanta qoraysa taariikh cusub waxaa la wadaagi doonaa ammaanka magaalada oo si weyn loo adkeeyay xogta wafdigan wasiirada ah ee tagay uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya علي يوسف علي حوش لونا مليناyo inuu gacanta ku sido warqadii aqoonsiga maamulka qaatumo mudabjireed kan ayeen idinku soo gudbin doona goorma ayuu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda u tagaya magaaladaasi soo dhawaada saaxiibayaal marka hore waxaad ka codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan idinka oo la wadaagaya saaxiibada kale idinku jira baraha bulshada aan ku bilaawno wararkeena warkan ka soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ku waramaya in goordhow ay caga dhigatay diyaaradda wafdi isugu jiro wasiiro ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda wafdigan ayaa waxa si balaaran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood waxaana ay hordhac u yihiin socdaal taariikhi ah oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda saacadaha soo aadan uu ku tagi doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool boqolaal gaadiidka loogu talagalay soo dhaweynta wafudda kala duwan oo ay diyaarisay maamulka qaatumo ayaa wafdigan looga soo galbiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wafdigan ayaa la geeyay qasriga madaxtooyada looga arrimiyo maamulka qaatumo iyaga oo halkaasi ku sugi doono diyaaradda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ee lagu wado in dhawaan ay ka degato iyaduna magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maamulka qaatumo ayaa diyaariyay maamuus aan hore loo arag oo lagu soo dhaweynayo madaxda qaranka ay tagayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ammaanka magaalada waxaa la soo warinayaa in si weyn loo adkeeyay wafdigan tagay goordhow magaaladaasi waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood ka goortagay si ay ugu sameeyaan soo dhaweyn ballaaran isla markaasina ay ugu galbiyaan qasriga madaxtooyada ee laga arrimiyo maamulka qaatumo xaaladda magaalada ayaa la soo warinayaa in maanta ay tahay mid si weyn kaga duwan waxaana gilgilayo diyaarado isdaba joog ah oo sida wafuud kala duwan kuwaasi oo magaalada tagaya maalnimadii shalay ayay soo bilowdeen wafuudda tagaya magaalada Laascaanood waxaana ku horeeyay cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda kuwaasi oo ka degay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku xigay kaaliyaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo iyaguna tagay magaalada Laascaanood loona soo dhaweeyay si balaaran maanta waa jimco lana qorsheenayo in diyaaradda ra'iisul wasaaruhu ay tagto Laascaanood ayaa waxaa hordhac kaga hortagay koox wariyaal ah oo diyaaraddii ugu horeysay ee saaka ka degatay Laascaanood saarnaa iyo sidoo kale wafdigan wasiirada iyo xildhibaanada isugu jira ee iyaguna tagay maanta magaalada Laascaanood wafdigan ayaa la soo warinayaa in ay kor u dhaafayaan kontameeyo waxaana ay yihiin kuwa dhammaantood u badan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda iyo dhammaan xubnaha muhiimka ah ee golaha wasiirada waxa socdo wasiiradii loogu talagalay in mashaariic muhiim ah ay ka soo fuliyaan qaatumo sida wasiirkii wasaaradda waxbarashada oo daadejinta nidaamka waxbarashada gaarsiin doono maamulka qaatumo si dadka qaatumo ay xaq ugu yeeshaan inay galaan imtixaanka shahaadiga ah oo ay qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan sidoo kale waxaa magaaladaasi gaaray wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Ali Yuusuf Ali Xoosh ninkan oo loo maleynayo inuu sido warqadda aqoonsiga maamulka qaatumo oo dowladda federaalku ay go'aan ay ku gaartay in maanta ay ku dhawaaqdo aqoonsiga maamulkaasi xaaladda magaalada ayaa ah maanta mid wafdigaasi kala duwan la circiirayso isla markaasina saacadba saacadda ka dambayso ay ka deganayso diyaaradda cusub oo sida wafdigaasi maanta ayayna tageen xildhibaanadaasi ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda iyo wasiiradaasi ka tirsan xukuumadda waxaa la sugayaa in goordhow ay garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood caga dhigato diyaaradda sida ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo ugu dambeyntii ku guuleystay socdaalkiisa taariikhiga ah inuu ku tago magaalada Laascaanood haddaba Somaliland ayaa maanta wajigabax kala kulmayso safarka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ee Laascaanood waxaana fashilmay isku day walba oo dal iyo dibad ah oo Somaliland ay doonaysay inay kor istaagto socdaalka taariikhiga ah ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta uu ku tagayo magaaladaasi Laascaanood xukuumadda Hargeysa ayaa ku dacweysay Mareykanka dowladda federaalka waxaana ay uga dacwootay joojinta safarka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ee magaaladaasi balse
wax walba waa ay soo ilaadeen keliya haddana waxaa loo joogaa in ay magaalada laascaanood ka degato diyaaradda sida ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda. xalay koreynta uusan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda wafdigiisii ugu dambeeyey u dirin magaalada laascaanood maanta waxa uu kulan gaara la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo isla afgarteen in magaaladaasi laascaanood looga dhawaaqo aqoonsiga dowladda federaalka ee maamulkaasi ku meel gaarka ahayd ugu aqoonsan doonto maamul rasmi ah. haddaba si kastaba ha noqotee maanta waa maalin weyn oo ku weyn dadka reer Khaatumo iyo guud ahaan inta jecel midnimada Soomaaliya. waxay arkayaan magaalo taariikh ahaan aan sanadadan aysan tegin wafdi heerkiisu uu sidan u sareeyo isla markaasina uu ugu sareeyo mas'uul ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ah. waana socdaal macno badan u sameynayo dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka ku meel gaarka ee Khaatumo. isku soo wada duube magaalada waxaa lagu arkayaa gaadiid safan wadada laga soo galo garoonka diyaaradaha ee magaalada laascaanood kuwaasi oo ah gaadiidkii galbi lahaa marka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu soo caga dhigto magaalada laascaanood. ciidamada maamulka ACC Khaatumo ayaa si buuxda ugula wareegay ammaanka magaalada halka ciidamada guutada madaxtooyada Soomaaliya isla markaasina ilaalada gaarka ee ra-iisul wasaaraha ahna lagu wareejiyay amniga madaxtooyada maamulka ACC Khaatumo. arrintan ayaa sidoo kale ka dhigan guul weyn oo ah in dowladda federaalka iyo mas'uuliyiintoodu ay aamineen in ciidanka Khaatumo ay ku filan yihiin amniga ra-iisul wasaaraha inta uu joogo magaalada laascaanood. ra-iisul wasaaraha ayaa wax ka yar 200 oo askari u diray magaaladaasi horaan waxaana tanina ay qayb ka noqonaysaa ififaalaha dowladdu ay dunida ku tusinayso in laascaanood ay tahay magaalada nabada isla markaasina uu tagayo ra-iisul wasaaraha iyada oo nabadaasi ballaaran ay ka jirto oo ay dowladda dhexe ay ku kalsoon tahay ciidanka Khaatumo ee ilaalinayo ammaanka magaalada isla markaasina saacadihii ugu dambeeyay la geeyay koonaha magaalada. Somaliland ilaa xilligan ma qaadan wax tallaabo ah marka laga soo tago qayladhaantan ay afka furanayeen siyaasiyiinteeda iyo hoggaanka xukuumadda oo ay caalamku ugu sheegayeen in la joojiyo socdaalka ra-iisul wasaaraha ee magaalada laascaanood. haddaba maxay uga dhigan tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed socdaalkan taariikhiga ah ee wafdigan sare maanta ku tagay laascaanood iyo xukuumadda Soomaaliya ra-iisul wasaaraheedu uu tagayo magaaladaasi waxaa la leeyahay waxay tani ay meesha ka saaraysaa dadaaladii xukuumadda Somaliland ay ugu jirtay maalmihii ugu dambeeyay inay ku hesho aqoonsi oo ay caalamku ka hesho. tanina haddii Khaatumo ay noqoto maamul rasmi ah waxaa loo arkaa inay soo afjarmatay rajadii iyada diiladii Somaliland ay ahayd in dunidu ay u aqoonsato ma waxaa dowlad noqon doonto Boorame iyo Hargeysa ayay tahay weydiinta ugu weyn ay ku warcelinayaan marka shacabka Khaatumo la weydiiyo siday u arkaan safarka magaalada laascaanood ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda. haddaba maanta wararkaas ayaa ugu waaweyn diyaaraddaas ayaa goordhow caga dhigatay xaaladda magaaladuna waa sidaas arrintaada wax dhisaysa qaybta hoose ee faalada dadweynaha ugu gudaha wararkan wanaagsan madgaliyo